suugaantu waxay baarka sare kaga jirtaa waxyaabihii ugu saameynta badnaa ee aadanuhu ay curiyeen intay noolaayeen hadday noqoto saameynta ay nafta ku leedahay hadday noqoto sida qofku uu masaalixdiisa ugu difaacdo danaha uu leeyahay uu gaaro iyo hadday noqoto sida aan u heshano mararka qaarna uu hel noogu noqdo ugu raaxaysano una dhadhansana macaankiisa ummaduhu way ku kala duwan yihiin saameynta suugaanta iyo curinta innagoo haddaan Soomaali nahay waxaan ku jirnaa ummadaha uu aadka u saameeyo suugaantu ay aad u saameyso gaar ahaan gabayga waxaa arrintaa nagala mid ah carabta oo laga yaabo inay weliba naga sii saameyn badan yihiin waxay soo jiitay qiso aan akhrinayay maalin dhaweyto Farasdaq الفرزدق وحوها شاعر أما قبياو وين أو نولا حلقي دولدي بني أمية وحو تضوب مغير لباتي كل تسام في اليوم مقالة بصرة وحا لولا قبيو كد حينجري أساقا يوني الجرير يا لبضا قبيسان حلقا إي نولايين كيبا كيكو ري ودو دير يا لقليا لكن فرزدق وحوها قبياغا أي دادك دولد بني أمية إي مضحوظ أي تعليين أي سود ويستان ميلها أي تشوغان كلانو ninkaas maal asagoo magaalada Basra dhaxmaraya ayaa wuxuu maqlay nin gabayaa ah oo cod dheer gabay ku akhrinaya gabayga asagoo muu lahayn laakiin uu soo guuriyay gabayga wuxuu ahaa mid ka mid ah mucallaqaadka ay carabtu leedahay mucallaqaad waxa la dhahaa carabtii hore ayaa waxaa jira 10 nin ama 7 nin oo gabayaa oo tiriyay gabay aad iyo aad u saameyn badan mar waxa la gaarsiyaa 10 mar waxa la gaarsiyaa 7 gabayadaas ma aha awoodoodu ma aha muxtawaha iyo waxay xambaarsan yihiin badanaa waxay ka hadlayaan dumar iyo meel laga guuray iyo reerkooda ay difaacaan iyo qabiil iyo waxaas ka hadlayaan badanaa laakiin carab waxay isku waafaqsan tahay in 10 kaanin ama 7 markii la yareeyo ay yihiin miida ama horyaalka luqadda carabta ay yihiin waxaa ka mid ah ibn qays waxaa ka mid ah zuhayr waxaa ka mid ah dad badan ayaa ka mid ah haddaba Farasdaq oo magaalada dhaxmaraya Basra ayaa wuxuu maqlay nin qaadaya wajala السيول عن الطلول كأنها زبر تجد متونها أقلامها gabayga waxaa iska leh beydkaas Labiid ibn Rabiica Labiid wuxuu ahaa nin gabayaa ah oo ka mid ah dadka iska leh mucallaqaadka waa halka nin nimankaas mucallaqaadka leh 10 ama 7 halka nin islaami weeye wuxuu soo gaaray nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam asagoo 60 jir ah marka waxa la 60 sano wuxuu ahaa jaahil buu ku noolaa gaalnimo 60 sano wuxuu ku noolaa islaamnimo ku noolaa Farasdaq markuu maqlay beydkaas وجل السيول عن الطلول كأنها زبر تجد متونها أقلامها سجود بالله وسجود مركز تذكر يا أبا فراس ما أها قرآن وقوي ما حق سجودي ولا يأمن وحير يدك وحتى قانان مواطن السجود في القرآن ما لها قرآن كل سجودات قانان النجون وحنا قانان مواطن السجود في الأشعار يعني ما لها قوي لو سجودات قانان فطرة الأدب هي سوانته في النظر إلى معناها النكاس وحكلا أو عبره أيوه أي ما تبجدين أما ما أمانين إن وح إلهي لو سجوده لكن نكاس وحكلا أو أمان معانك إيه دنك إيو أود بيت كاس أما تدعس أيوه أي يعني أود ديسو ما هو حويرو كهالله لكن وسيد وسوءك ضاد يقلن إيو تشبيه أما كيسين دلها كجرته أيها وأد Farasdaq أوهلي waxyaabaha la yaab kale waxa kamid ah Labiid ibn Rabiica oo gabaygiisu saa u awood badnaa marka uu islaamay gabaygi oo dhan uu joojiyay waxa la sheegaa inuu ala kulli shay ma khala Allah baatilu bayt ama labo oo ka kamid yahay oo ayuu tiriiso u islaamay markii la weydiiyo le warniyo waxaad ahayd nin gabayaa nin qiimo badan nin gabaygiisu uu horyaalka carabta yahay maxay isaga deysay gabayga wuxuu yiri gabayga Ilaahay wuxuu igu bedelay al-Baqara waxaad garan kartaa nin gabaygiisa loo sujuuday awoodda uu leeyahay marka uu quraanka akhriyay na wuxuu dareemay inuu yahay daciif inuu gabaygiisu wax macna lahayn markii loo bardhigo kalaam rabbil caalamiin iyo quraanka halka waxa ka garanaynaa in si kasta oo aadanuhu uu ibdaaco wax fiican u sheego oo quraan uu maartay gabay wanaagsan u sheego in hadalka eebe iyo quraanku uu yahay wax aan la gaari karin oo baarka sare ee luqadda carabiga ku jira